booliska Sweden oo shaaciyay tiradii ugu badneed dil toogasho ay ka dhacday dalka sanadka 2022 isxabadeynta sanadka 2022 5% ay kor u kacday markii loo fiiriyo sanadkii hore ee 2021 dhaawacayaasha ayaa hoos u dhacay 3% markii loo fiiriyo sanadkii hore taas bedelkeeda kor waxa uu kacay dhimashada la xiriirta dil toogasho qorsheysan 40% ay kor u kacay markii loo fiiriyo ama la barbar dhigo sanadkii hore ee tagay ee 2021 waxaana sababay daroogo badatay iyo guruubyo iska soo horjeedo oo si argoosta isku ugaarsanaya fanka raabka wuxuu noqday codbaahiye ay ku soo bandhigaan hub iyo hanjabaadahooda dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay fanaaniin ugu caansan Soomaalida ee raabka Sweden waa Soomaali ilaa 10 ay gaaraya sanadka 2022 fanka raabka Sweden Soomaalida ugu caansaneed ayaa si lama filaan ah u shaaciyay in ay toobad keeneen sida Darelow Aadan ka 27 ila freeway oo magaciisu yahay Ilyas oo maanta aan barnaamijka uga hadlayno kadib barnaamijka galka baarista ay Uppdragsgranskning top listans 100 gobbar ee TV qaranka Sweden ay baahiyeen bartay TikTok waxaan soo galiyay muuqaal yar oo duwad ku soo sameeyay oo wiil dhaha Ilyas cilmi oo Sweden ku noolaa oo hadda Soomaaliya tagay oo noloshiisa yacni sida ugu sheekeena documentary laga sameeyay oo laga soo daayay TV qaranka Sweden dhahayo noloshiisa inaba caadi ma ahayn isbedelka uu sameeyay yacni noloshiisa iyo hadda nolosha wuxuu rabaa inuu bedelo waxyaabo badan oo noloshiisa ku soo kordhiyo oo businessman oo noqdo marka Ilyas taariikhdiisa wax yar ayaan kaga sheegay qiso podcast barnaamijyadeena waxaa kala socon kartiin Spotify iyo YouTube Ilyas wuxuu ku dhashay Sweden ku dhashay caasimadda Sweden Stockholm xagga ku soo barbaaray marka dhalinyarnimadiisii wuxuu ku soo biiray fanka ku soo biiray asagoo yar asaga iyo asxaab kale hadda fanaaniin waaweyn ah oo Sweden ayagana sidoo kale ku soo barbaaray ku dhashay ayaa waxa muuqaal yariis iska soo duubay ayagoo freestyle sameynaya Beam Block Entertainment Illy Freeway Yasin my nigga Versace Block baby yeah börja på något fucking stort bre Sverige det bara latch yeah you can say that I seen better days some days I seem to drift away I sit in silence as I usually pray wise men told me you should learn from your mistakes muuqaalka marka qarxay dad badan waxay daawadeen muuqaalkooda ayagoo freestyle sameynaa rap ah muuqaalka marka YouTube lagu baahiyay maalmo ka bacdi Ilyas wuxuu go'aansaday inuu fanka ku biiro centrum dagen efter jag går så där la man börjar säga ey vad fett ju man börjar hypa mig tyckte la det var så va yalla då dagen efter jag preskriver wax bilaw inuu heesaa asaga leeyahay oo qoro ka bacdina uu soo saaro saasoo wuxuu ku noqday fanaan ku noqday sidoo kale ingiriisku asagana wax soo joogay oo ku soo noolaay marka ingiriiska iyo luqadda ingiriiska iyo Swedishka isku dhex daray muuqaaladiisa iyo heesaha dad badan ka heleen Spotify soo galiyay wax si fiican ugu qaraxday marka kadibna waxa dhibaato dhacday xaafadda ay degnaayeen oo yacni dhalinyaro badan oo ajaanib ah ay ku nool yihiin sida Soomaalida oo kale ay ku nool yihiin marka xaafado badan waxa jiro caasimadda ku taalo oo yacni daroogada caadi ka noqotay waxyaabo badan oo rabshad ah in dhalinyarada isxabadeeyaan waxyaabo badan ay ka dhacay xaafadda Ilyas wuxuu ka mid noqday dhalinyaradii dhibaatadaas soo gaartay yacni in ilaa xaafadii aad degan tahay dhalinyarada asxaabtaadii waaye marka wax kasta waa lagu soo jiidaa hadhowtiin wixii adoo dhex taagan arkaysa adoo dhalinyaro iska ah waxaasna aan fahansanayn waxay yihiin oo waxaan hadhowtii maxay nolosha saameyn ku sameyn doonaan fahansanayn markii heesayga si weyn looga dhageystay Spotify ayaan iska daayay ka ganacsiga daroogada marka Ilyas hadda kuma faraxsanayn oo dhahay waxyaaba aan soo maray nolosheedii hore fankinu ka baxay du slutar antingen graden eller i fängelse. Det är ingen annan väg alltså du har när du är kriminell. waxay ku dhamaanaysaa dil ama xabsi jid kale ma jiro markaa tahay dambiile hooyo markasta ii duceyn jirtay maalin xasuusta anoo jiifo hooyo oo sariirta geeskeeda fadhida kusoo kacay oo ay fiirinayso anoo ku naxsan maxaa samaysay ayay igu tiri goormaa iska daynaysaa heesaha waxaa dhacda sidoo kale Ilyas hooyadiis si fiican iskugu dhawaayeen walaashiisa ka hadlaysa waxay dhahday
ilyaas iyo hooyo mar kasta waa isla socon jireen hooyo hadday dukaanka aadayso hadday yacni ama magaalo kale aadayso ama waddan kale aadayso ilyaas mar kasta wada jirtay marka waxaa ka dhexeeya xiriir fiicana ka dhexeeya hooyada iyo ilyaas De satt ihop. Alltså han gjorde, skulle hon resa, han var med henne. Jag tycker I'm raised in a good way. My mom raised me good. I did wrong on my own. marka ilaahay amarkiis hooyadiis xanuun oo halis ah ku dhacay oo kansar ah Jag ska till här i Sankt Göran sjukhuset i palliativavdelningen. Mamma har cancer. asagoo wareysiga tv-ga qaranka Sweden ku jiro ayay hooyadiis geeriyootay isbitaalka ku geeriyootay hooyo isbitaalka ayay ku suuxday mana garanayaan inay soo kacayso waa sababta aan maanta u niyad jabsanahay runtii waxaan ahay qof isku dhex yaacsan maanta gelinkii hore waxaan rabay inaan fal dembi ku kaco laakiinse beddelkeeda masaajidka ayaan iska aaday salaad ayaan soo tukaday wax badan ayay iga caawisay salaada degenaansho ayaan dareemay walaashiisna waxay dhahday annaga dhan sidii asaga u saamaysay ayaa ugu darneed dhahda asagay saameyn weyn ku yeelatay hooyo markay dhimatay Det slog honom ganska hårt. Och slog oss alla hårt, men speciellt honom. marka wuxuu go'aansanaa fanka iska daayo noloshiisa oo waxyaabo badan ka bedelo sidoo kalena oo u tago yacni imaam oo Sweden jooga oo dhalinyarada caawiyo oo wax fiican waxaan u sheego waxuuna ka waaniyo saaxiibadiina keliya ha duuganina ee dagaalka iyo daroogada ay naceybka isku qabtiin maanta duuga maanta baroordiiq iyo in beena berina asxaabadeen iyo daroogo iibis waxyaabo badan oo laga caawiyey markii dambe wuxuu process fiican u sameeyey kadibna Soomaaliya hadda asiga abtiyaashiis faamilka dhan yani business ay meesha ka bilaabeen asagana marka businesskii oo ka qayb noqday haddana wuu ku faraxsan yahay noloshiisa marka waxaa nolol fiican oo hadda u bilaabatay waxaan u rajaynaynaa insha Allah guul dhalinyarada badanna oo hadda ama ku nool qurbaha qaasatan inay kuwaana qaataan way fiican tahay Om det som du har ett sätt att bli behandlad på. För det känns som att du behandlar du som en invandrare fast du är född i Sverige. adoo ku dhalatay Sweden haddana bulshadu waxay ku dareensiinaysaa inaad ka baxsan tahay halkan waxaan dareemayaa inaan ka baxsanahay bulshada ee sabtigiis wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Ilyaas dalka soo arko nolosha ka jirta hooyis waxay jecleed inuu Ilyaas dalka imaado oo nala shaqeeyo si uu ugu arko dad uu ku dayan karo way fiicanta hadduu dalka sii joogo si uu nolosha u fahmo Sweden markuu ku laabtana uu u shaqaysan karo shaqo caadi ah oo nolol caadi u noolaan karo Förstå